gudida nabadgelyada gobolka Togdheer oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay joojiyeen hoteelada laga heesi jiray ee ku yaala magaalada Burco. Maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Abdiraxmaan Muraad barasaafka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayde ayaa arintaasi warbaahinta u sheegay iyagoo digniin u diray mas'uuliyiinta hoteelada Burco. Waxa ka sii daran hawl kale bariyahan ay culimadu ka qeylinaysay oo hodheeladan waaweyn Burco ka soco qaarkood yaan oran hodheelada waaweyn oo laga soo qeyliyay inagoo teeniba u liidana hadan cadho ilaahayna shaqeysano kan laftiisu waa cadho ilaahay hadan cadho kale shaqeysano waa mashaakil dadku waxay sheegayaan hodheelo lagu tumanayo la tumayo muusig laga tumayo oo ummadii isku dhex jirto intaas oo boqol oo qof ay isku dhex jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala cid uu kala xisaabtamaya annaga way dadka meheradaha leeyahay xishoon waayeen wallahi billahi tallahi gacan baan xishoon meel والله إننا كحشون لبا حالا من نوع حشون مين إن رجي هبلها يجي يريرا دت كان كمان يمنين سيرلانكا كمان يمن هبلها يجي يراين ما يجي يريرا أنت قول لي سوقيو إن موسيقى لوتم مدع يسوى والله مدع متكلنا كحشون مين ومدي يقول لي يدي كالفجادة إن قال يرنت اللي يسوى حريو لا هالك كنتم تلا يدعو مدع يسوى dadka aan xishoonin gacantaan wax kaga qabanay mana dhacayso in habeen dambe la ilaalkan muusig lagu tumayaa dhicmi annaga ilaahay subhanahu wa ta'ala na weydiinaya dadka sufahada waxa ay sameeyaan wayna wada camimaysa dambigeeda wayna wada camimaysa wattaquu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaas waxa mamnuuca hudheeladii iyo hoolalkii la isugu imanayay ee dhowrka kuna qof intay isu timaado mataqaana laga caawdo durbaanka laga tumanayay ay lagu kala qaadiyo xanuunka waanu mamnuucnay ilaa inta xanuunkaasi jiro isuimaantii hudheeladu haday tahay aroos haday tahay musharax waanu joojinay annagoo caafimaadka dadka ka talinayna ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.